أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلن كأني جمعها أقون كررسك كساب سنة أنك جهد لشري إن وحوم بالكوغانو مخلوقا dunida inagu weheliya iyo raadka ay nolosheena ku leeyihiin. waxaynu ka hadalnay casharkeennii ugu dambeeyey sixirka la yidhaahdo sixra rabt. calaamadihiisa waxbaan ka sheegnay, sida wax macan xanuunkaa loo daweeyana waxbaan ka tilmaanay. dabadeed casharkii ugu dambeeyey, jimcihii u dambeeyey, waxaynu tilmaanay cudurkan rabdiga ama sixirkan rabdiga. cudurro kaloo ay ismathalaan ama ay isdhex galaan oo la ysku qaldi karo. waxaynu markaa tilmaanay farqiga u dhaxeeya cudurkaa rabdiga oo aan uga jeedno ruuxii laga sixray mataani ama maclamaankiisii ama zawjkiisii, rag hadduu yahay ama dumar hadduu yahay, ruuxii laga sixray calaamadaynu u sheegnay. waxaynu markaa tilmaanay xanuunno kale oo iyana ku dhaca xubintaa taranka oo qofka bini aadmigii uu awood u waayayo mucaasharadii iyo mucaamaladii lamaankiisa. waxaynu nidhi laba cudur baa masala. cudur waxay yidhaahdaan cajsul jins, midna waxay yidhaahdaan dacfal jins. cajsil jinsi isagu waxaynu nidhi waa wax abuur xidhiidh la leh, yaalaana wax dawaa qaaliban looma helo. dacfal jinsigaynu u soo gudubnay. dacfal jinsiga ayaynu macnaynay. waxaynu markaa ka hadalnay asbaabta iyo waxyaalaha keena dacfal jinsiga ayaynu soo tirinay. markaa dacfal jinsiga asbaabta keentaa waxaynu u qaybinay qayb laga bogsan karo ama la maarayn karo oo sababaha keena aynu wax ka tilmaanay. qaybtaasaynu ku guda jiray. qayb labaad baa jirta oo asbaabta dacfal jinsiga keenta qofka uu la noolaanayo ilaa iyo intuu nool yahay ee adduunyada uu ka tegayo haddii aan xal loo helin ku meel gaadh ah.
كإلا سديد مسألة ayaynu soo eegnay oo asbaabta keenta qofku inuu awoodiisa haddii alla yidhaahdo jinsigii raganimadu ay daciif noqoto waxaa ugu dambeeyey sababka aynu nidhi التدخين waa qofku hadduu sigaar cab yahay rag iyo dumarku doonaba ha noqdee haddii alla yidhaahdo darbadda iyo kubadda meeshii la rabay ma gaadhsiin karo daciifnimo iyo awood darro fara badan buu sigaarku ku keenaa mucaasharada iyo mucaamalada maxaanku idhaahdaa lamaanka qofka bini aadmiga uu la mucaamaloonayo waxaynu aada uga warannay dhibaabaha uu sigaarku ku keeno nolosha qofka bini aadmiga ah xayan aw mayitan inta uu nool yahay dhibta uu ku keeno waxbaynu ka tilmaannay hadday nafta kala socdaalaanna jasadka raadadka uu ku leeyahay waxbaynu ka tilmaannay oo aynu ka soo sheegnay waxaa kaloo haddaba qodobka sagaalaad ah oo aada iyo aada u dhaawici kara awoodda jinsiga hadday rag yihiin iyo hadday haween yihiinba waxa weeyaan idmaan alkuxuuliyaat waxyaalaha maandooriyayaasha la yidhaahdo ruuxu haddii uu laasimo dhib badan bay ku keentaa nolosha lamaanaha marka mukhaadiraadku asmaa fara badan bay leeyihiin noocyo fara badan bay leeyihiin dhibaabahooduna wuu sii kala badan yahay qayb waa khamriga oo waxaa dareeraha ah noocyadiisa kala duwan hadday jiin tahay iyo hadday farsho tahay iyo hadday wixii kala tahay qaybina waa geedo dhulka ka soo baxa qaybina waxa weeyaan waxyaalo laga soo dheego dareero ah oo la isku mudo sida hoorainta hirointa iyo koka-inta iyo marwaanada iyo wixii la halmaala iyana kuwaas oo qayb la shito oo la nuugo sida sigaarka qayb la ursado sida haddii alla yidhaahda buuriga qaab ka mid oo kale loo ursado iyo qayb la isku mudo oo xididka iyo dhiigga la raaciyo waa asnaafan wa anwaacan oo aada iyo aada u tiro badan wey qaybna daankaa la geliyaa sida buuriga oo kale qaybna waaba la calashada noocyada mukhadiraadku aada iyo aada bay u dhib badan yihiin caafimaadka caadiga ah iyo nolosha mucaasharada qoyska noocyada mukhadiraadku qaab bay bini aadmiga ula falgalaan qofka bini aadmigihii marka uu isticmaalo midiba sibay qofka bini aadmiga ka dhigtaa qaarkood qofka bini aadmiga waxay u sheegaan inuu geesi yahay aan cidi dili karayn qaarkood waxay u sheegaan qofka bini aadmiga inuu fula yahay oo wax walba uu ka cararo qaarkood waxay u sheegaan qofka bini aadmiga ah inuu sankiisu dheer yahay dabadeedna uu dadka kala leexleexdo oo waxaanuu la baydhbaydhayaa sankiisii oo dheeraaday oo uu la dadka haddii alla yidhaahdo midba khayaal gaar ah ayay qofka bini aadmiga ku keentaa muddada hore ee qofka bini aadmigii uu mukhadiraadka bilaabo wuxuu ismoodaa inuu awood leeyahay hadday xagga maskaxda tahay iyo hadday xagga dareenka jinsiga tahayba qaarkood waxay ka raadiyaan farxadoo qosol beenbeenahunbu ayuu bilaabaa maalmaha hore waxaa moodayaa inuu awood yeeshay laakiin marka dambe qofka bini aadmiga ah wuu daciifiyaa jiho kastoo noloshiisa ka midana wuu ka reebaa asaagii hadday hurdo tahay haddii ay maxaanku dhaha cunto tahay haddii ay fikriyi tahay hadday shaqo tag tahay waxoo dhanba waxaase la yaab leh geedkan inagu aynu laasimno ee qaadka la yidhaahdo
waa geed suuro badan oo wajiyaal fara badan leh. herointu hadday dadka oo dhan cidda isticmaasha sifo keliya ay kula dhaqanto, kokaintuna ay dadka isticmaasha hal qaab keliya ay ku qabato, isagu bini aadmiga wuu kala xushaa oo ruux walba laba ruux oo wada qayilaya ayaan isku dabeeco noqonayn. dadka qaarkood marka ay cunaan hadal buu ka furaa, idaacad buu ka furaa, dhegaysa ama ha dhegaysanina. intaa uu diiran yahay aad iyo aad buu u hadlayaa. mar allaaliya markaa uu dhiiggiisa uu raacay uu ku khamaadana wuxuu ku furayaa tashwiish qofka bini aadmigihii uu aad iyo aad iyo aad muud u gelayo oo uu warwarayo meel allaaliya meel warwarkaasi kaga furan yahay aanu garanayn. dadka qaarkood aamus buu ku ridaa markay qaniinaanba. dadka qaarkood fikir fara badan oo aanu wada isticaabi karaynin ayuu maskaxdiisa ku abuuraa, markaasuu qorshayaal dejinayaa, qorshayaashaasuu ku macaashayaa, malaayiin dollar uu macaashayaa, shaqadii oo dhan daqiiqada gudaheed buu ku wada qorshaynayaa. hadhow markay xaqiiqada tagtana wax allaaliya wuxuu qorsheeyey oo dhan waxaad moodaa mawjado bad ah oo guri lagu dul dhisay. marka ay ka baxdo sakhradiisu wax allaaliya wuxuu qorsheynaya oo dhani waxay noqotaa hal bacaad lagu lisay. ragga qaarkood wuxuu ku abuuraa dareen jinsi oo xad dhaaf ah oo aad iyo aad u sarreeya daqiiqada gudahood, haddana markiiba wuu ka degaa. ragga qaarkoodna mar allaaliya markay qaniinaan wuu dhufaanaa, biyahana wuu ka keenaa oo noloshiisu waxay noqotaa nolol aan maxaanku idhaha raaxo lahayn. isagu markaa waa wejiyaal badan buu leeyahay. qaadku wejiyaal fara badan ayuu leeyahay. aakhirkana qofka bini aadmiga ah xataa nadalka iyo muuqaalka wejigiisa iyo nuurka wejiga wuu ka baabi'iyaa, ilkihiisana wuu baabi'iyaa, dheefshiidkiisana wuu cadilaa, dhismaha tarankiisa maxaanku idhaahdaa dhismaha qaybtan tarankana wuu baabi'iyaayo maxaanku idhahdaa awoodduu ka qaadaa. qaadku waa geed aad iyo aad u suuro badan oo u howlo badan. inta cuntaa garanaysa xaaladda uu leeyahay. waa geed la qabsi leh oo qofka bini aadmiga hadduu la qabsado uu u xiisoonayo, haddaanu awood iyo go-aan adag aanu ka qaadanna aanu iska dayn karayn. dadka qaarkoodna wuxuu ku keenaaba waali. markaa ta inaga khusaysaa waxa weeyaan waa tan aynu ka hadlayno ee dacfal jinsiga ah. qaadku ragga badankooda dacful jinsi buu ku keenaa, ama dareenkaba ha ka qaado, ama marka uu dareenkiisa helo markiiba biyuhu ha ka yimaadaan. taasi waxay sababtaa in qoys fara badan uu kala baabi'iyo uu kala diro. marka qaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha dacfal jinsiga ku keena dadka cuna. waxyaalaha dacfal jinsiga ku keena haddii alla yidhaahdo qodobka 9aad dacfal jinsiga keena oo aan loo aanayn karaynin sixra rabdigii aynu sheegeen. sixra maxaanku idhaha rabdiga aan loo aanayn karayn waxa weeye ruuxu haddii uu maxaanku idhaha ama ummaddu hadday ikhtilaad bayna aljinsayn, haddii labada jinsi ay isdhex qaadaan iyagoo cawradoodu aanay kala dadnayn, hadday muddo dheer wada mucaamaloodaan, labada jinsiba dareenkoodu hoos buu u dhacaa. oo mar haddii aragtidu kugu badato waxay keenaysaa marka dambe xiisa dhac bay kugu keenaysaa. haddii meel walba haddii aad ku aragto jinsigaagii labaad oo iska qaawan ama xubnihiisii muhiimka ahaa wax ka muuqdaan, aakhirka dambe isuma hawoodaan. waana sababta keentay dadkan caalamka yidhaahdo waanu xorownay ee maxaanku idhaha diimaha ka xoroobay 20 jiradu inay isticmaalaan kiniinadan awoodda kor u qaada. ayagoo waqtigii loogu awoodda badnaa maraya ayaa haddana waxay u baahisaa inay haddii alla yidhaha isticmaalaan kiniinadan
dilaaga ah aakhirkana ku soo baxaya ayay naf moodaan oo ay ku eertaan. marka ikhtilaadka bayna aljinsayn wax badan buu dhaawacayaa dareenka qofka bini aadmiga labada jinsiba. haddii laakiin xuduud loo kala sameeyo waxay noqonaysaa in arrinkii la isu soo hiloobo oo la isu soo boholyoobo. laakiin hadduu wuxuu noqdo biyayaa shuban hadday noqoto oo wuxuu uu rakhiis noqdo, wixii oo dhani way isla qiimo jabayaan. mahmaah aada u qiimo badan oo reexamarku ay ku mahmaahanbaan baa jira. waxay yidhaahdaan ma qabtaa qaali waaye, ma rabtaa riqiis waaye. ma qabtaa qaali waaye, ma rabtaa riqiis waaye. haddii waxa la naadiyo oo la raadiyo oo yaa haya la yidhaana macnuu yeeshaa. haddii wixii la yidhaa biyayaa shubanna wuxuu noqdaa wax bilaa qiima. waa sababta ay ciidda iyo dahabku u kala qaalisan yihiin. ciidda meel walbaa laga helaa, ma cid baa iibsanaysa, cidima xiisaynayso. dahabkana waa tadee qaaliga ah oo la raadinaya, sababtoo ah waa naadir, waa la raadinayaa. marka wax kasta oo laga qaado qiimaha oo haddii alla yidhaahdo bannaanka loo soo saaro wuu qiimo jabaya. wax kastoo yacni xurmadiisa la siiyo la ilaaliyaana qiimuu yeelanayaa. lidaalik baa ilaahay subxaanahu wa tacaala haweenka mu'minaadka ah uu ugu talagalay si ay qaali u noqdaan in ay is-asturaan. waqul lilmu'miniin yani wanisaa'i almu'minaat yudniina calayhinna min jalaabiibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn. marka asbaabta ilaahay uu haweenka u asturay waxa weeye in ay qiimo yeeshaan. marka isdhexgalka labada jinsi oo aan kala asturnayn waxay dhaawac u geystaan hormoonada awoodda u leh inuu dareenkaaga wax ka bedelo. marka haddii qofka bini aadmigii uu laasimo inuu aada u daawado aflaamtan khaliicada ah, aflaamtan qaawan hadduu ruuxu aada u laasimo, cimri deg deg bay ku ridaa xubintiisa taranka. waayo maskaxdu waxay tuujinaysaa hormoonadii dareenkan kicin lahaa. marka mar walba meel cidla iyo khayaaliya lagu liso, waa halbacaad lagu lisay soo maaha, marka dambe wuxuu noqonayaa dee ceelkii goof buu noqonayaa, uu gabnoomayaa. marka meeshii loogu talagalay meel aan ahayn haddaad geyso, isna hadhow wuxuu noqonayaa waxaan lismaynin oon macno samaynaynin. marka asbaabta had iyo jeer ku keenta da-yartu inay muddo gaaban ay ku niyad jabaan ama awooddooda raganimadu ay hoos ugu dhacdo waxaa ka mid ah daawashada aflaamta khaliicaadka ah ee dhaawaca u geysanaysa indhahooda iyo maskaxdooda iyo muruqooda. oo had iyo jeer qofka bini aadmiga dhallinyarada ah ee ilaashada macdanta ilaahay uu siiyey wuu ka xoog badan yahay inanka had iyo jeer macdantiisa meel cidla ah ku quba. ma ordi karo oo in yar buu ku xiiqayaa, muruqiisu ma korayo. haddaad muruqiisa saa u taabato waxaad mooddaa inuu xalxalay oo biyo ku jiraan. waxa weeyaan waa isticmaalkan khasabka lagaga keenayo, waa gacan ku rimis weeye. marka xaajadan gacan ku rimiska ihi waxay keenaysaa in si khasaba maxaanku idhaahdaa lagaga soo qaado xubnahaagii iyo jidhkaagii iyo lafahaagii calciumtii ku jirtay iyo fitamiinaadkii ku jiray baa si khasaba ku imanaya. marna si xor ah waa marka aada lamaanahaagii runta ahaa aada haysato, jasadkaagu ma dhaawacmayo oo jidhkaagu isma dhimayo. sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waman ibtagaa waraa'a daalika fa ulaa'ika hum ulcaaduun. intaa aan u xadidnay waxaan ahayn ninkii yacni ka raadiya xal, isaga xadgudub ku jira. ruuxa xadgudubka ku jiraana dee abaalmarintiisuu helayaa, ama ha u soo degdegto ama ha u habsaanto. marka xaaladaha noocaas oo kale ahi waxay keenaan qofka, waxay ku keenaan hama yaraan bay ku keenaan.
hama yaraani hadday timaadana awooddii xubintii way la qaybsanaysaa oo hamaday ku xidhan tahay intaasoo sababood oo daraasad laga sameeyey intuba waxay keenaan ضعف الجنس mana aha sixra rabti ma waa wax adigu aad kasbatay oo sababtaada ku yimid intaas waa asbaabta la xallin karo oo qofka bini aadmiga yahay مثلا haddii xagga indhahaaga ay tahay ilaahay amar buu ina siiyo وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن عاقبة هي فائدة لقيه لي مؤمن كاقرنيا عندها قالوا حويان وفرين قلدن أي كوسو نقونيسو أبا المرين تيدو مسكح هذا أي دبو كوسو نقونيسو marka indhahan inaad ilaashato adigu inaad ilaashato indhahaaga si aanay mashaakil nafsi ah iyo mid ismiya aanay kuugu soo jeedin waayo halka wax laga sahamiyaa waa indhaha hadday indhahaagu meel xaaraana u sahan tagaan dhibteedu adun bay marka dambe ay kugu soo noqonaysaa marka ilaahay wuxuu ina amray inaan xubnaha amaanada ah ee ilaahay ina siiyey inaan ilaashano inna as-sam'a والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إندهن إلهي وحو إنوسي حكمة دقهن إلهي حكمة بو إنوسي إنت بهداد كله وفرتو وحاكوسو دقدقية جسيه يا أبا المرنتي آد كسبتي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وحكستو إذن قاعدة ووحا إذنكو كسبتين با إلهي سبحانه وتعالى أضوميه سم الظلمية انت أمرك أن كقود ابنه وحا جرا أسباب اللكين وقفك بنا آدمك ضعف الجنس كوكيني كرا حدي آنو سفي عن أولا معاملون وحا ككو مرض السكري حنون كان أينو ندهنو معانك أما سكريك haddii uu muddo dheer qofka uu hayo asaanu la saaxiibina uu la carigtamo macaankaasi wuxuu keenaa ضعف الجنس awoodda hoos buu u dhigaa hadday rag ku dhacdo iyo hadday dumar ku dhacba xal buu leeyahay oo inaad adigu la mucaamalato oo aanad ku carigsanin oo aanad la dagaalamin xanuun lama dagaalamo wala la saaxiiba macaankuna waa xanuunada ugu camalka san haddii aad si fiican ula mucaamalato waxyaalaha kicinaya aad ka dayso waxyaalaha kaa caawinayana aad ku dadaasho sida maxaan ku dhakhaatiirtii aan halkan keena inooga warrameen qofku hadduu macaan yeesho waa inuu socod sameeyaa qofku hadduu macaan yeesho waa inuu sonkorta cad iyo waxay ku jirto oo dhan uu iska daayaa maadooyinka khudaarta ah ee sonkorta kicinaya sida baradhada iyo wixii lamid inuu iska daayo haddii uu si fiican ula dhaqmo macaanka waxaa laga yaabaa inaanu dhaawac weyn u geysan laakiin hadduu qofka bini aadmigiihi la saaxiibi waayo wuxuu ku keenaa ضعف الجنس waxa kaloo iyana ضعف الجنسiga keena xanuunkan aynu nidhaahno dhiigkarka oo xataa dawooyinka loo isticmaalo laftooda qaarkood side effectska ay leeyihiin iyo mudaacafaadka ay leeyihiin ضعف الجنسi bay xambaarsan yihiin waxa kaloo qofka bini aadmiga ضعف الجنسi ku keeni kara haddii lafta dheer ee dhabarku ay dhaawacan tahay ama uu xanuun ku dhaco waa halka laga maamulo dareemada waaxyaha jidhka oo dhan xangulaha ku jira ayaa maamula waana qayb maskaxda ka mid a xanguluhu haddii lafta dhabarku ay dhaawacan tahay dareenka jinsigu hoos buu u dhacayaa haddii markaa ay lafta dhabarkee dhaawacanta ee xal yeelatana waxaa laga yaabaa inuu dareenkii halkiisii ka soo noqdo haddii xal loo waayana waxay noqonaysaa qofkaasi inuu ka quusto dareenkii jinsiga iyo awooddiiba qodob kalaa jiro oo afraad oo qofka bini aadmiga awood darro ku keeni kara xagga jinsiga waxaa ka mid ah isti'saal alborostata qanjirhkan borostatka la yidhaahdo haddii uu xanuunsado oo qofka laga saaro wuxuu keeni karaa in awooddii raganimadu hoos u dhacdo qanjirhkan borostatka la yidhaahdo waa qanjidh tuubadan dheer ee ka soo baxda
kaadi haysta ayuu sidaa ugu maran yahay wuxuu leeyahay xajmi la yaqaano oo uu ku kala weyn yahay abuurta bini aadmiga isku wada xajmi ma aha borostaytka raggu dumarku borostayd iyagu male laakiin ragga iska leh qanjirka borostaytka la yidhaahdo wuxuu dhacayaa markaa xiniinyaha iyo duburta dhexdooda ayuu markaa ku beegan yahay wuxuuna isku maraa hareeraha kaga maran yahay tuubadan dheer ee kaadida soo qaata waana sababta marka uu borostaytkaasi bararo kaadidu ugu joogsato siiba waayeelka iyo ku dhaca iyo dadka uu kansarku kaga dhaco borostaytka ee uu bararo wuxuu cadaadinayaa tuubadii kaadida soo qaadaysay marka tuubadii kaadida soo qaadaysay kama soo qaadayso kaadi haysta waxaa loo baahanaya markaa kataytar in la geliyo hadduu borostaytkaasi ku buko waxaa suurtagal ah in dareenkaaga awoodeed uu hoos u dhaco asbaab baana isaga keeni karto waqti bay u baahan tahay in laga hadlo waxyaalaha had iyo jeer keeni kara waxa weeyaan awood la-aanta jinsiga iyana ka mid ah haddii wiilka ama ragga hadday xiniinyaha nabar ka gaadho ama jug ha ku dhacdo ama kubadi ha ku dhacdo ama sidoodaba igfashan ha ugu dhaco haddii xiniinyuhu ay xanuunayaan ama xiniinyahaba ruuxa laga saaro waxaa imanaya dacf aljinsi waayo waa xubin xasaasiya oo soo saarta dheecaankan awoodda raganimada kor u qaada ee testosteroonka la yidhaahdo ayay soo saaraan waxaa kaley soo saaraan xayawaanka manawiga ah ee sbamiska la yidhaahdo iyagaa soo saara waa warshadda soo saarta haddii warshadaasi ay cadilanto awooddii raganimaduna hoos ayay u dhacdaa marka ikhwatii fillaah maradka aynu ka sheekaynayno ee rabdiga waxa iina barbar socda labadaa xanuun ee midna uu yahay mid aan xal lahayn oo cajsil jinsi baa la yidhaahdaa midna waa kaa dacful jinsiga ee labada qaybood u kala baxa qayb qofka bini aadmiga ayaa xalkeeda isagu gaadhi karaa waa qaybta asbaabta hore aynu u sheegnay qaybna waa qayb caafimaad oo taa borostaytka iyo xiniinyaha iyo wixii la mid ah ku dhaca saasay u qaybsantaa waxaynu markaa halkaa kaga baxaynaa sixirkii aynu nidhi sixra rabti baa la yidhaha waxaynu u soo qadinnay sababtu waxay ahayd baahida loo qabo xanuunka in wax laga ogaado oo ay dadku fahmaan oo mar kasta oo ay dhibaato timaado xagga jinsiga aan sixir iyo jin iyo il uun aan loola cararin xaalado kale oo badan oo ay ka caawin karaan dhakhaatiirta mutakhasisiinta ku abaabkaasi inay jiraan oo weliba ay u badan yihiin 90% innaga dalkeenna dadka qaadka cuna 90% dadka qaadka cuna mashkaladaasi way haysataa waana mashkalad iyaga gacantooda dee ku jirta waana mashkalad xalkeeda iyagu ay inagaga filaan karaan haddii qofku markaa uu caqligiisu shaqeeyo waa wax uu kaga filaan karo dhibaatada iyo mashaakilka qoyskiisa haysta taasi waa qodob marka waxaan u gudbayaa insha allahu tacaala mowduucii kale iyo sixirada qaybihii kale ayaynu u gudbi doonaa isaga sixra rabdiga waan ka hadalay sixir kalaa jira waxaa la yidhaha sixirkaas waxna waan ka soo tilmaanay muxaadaraadkeennii hore innaga oo waxoogaa ka xantaysanay oo yaro gacantogaalaynay asaan hoos ugu dhaadhicin doorkan maanta ah waxaan ugu dhaadhacayaa waxa weeye sidee loo xallin karaa sidee loo daweyn karaa iyo calaamadihiisa lagu garan karo maalmihii hore markaan ka hadlaynay sixra tafriiq astaamihii calaamadaha sixra tafriiq lagu garta maynaan ka hadal sida loo daweeyana maynaan ka hadal laakiin doorkan maanta ah waxaan rabnaa inaan ka hadallo sixra tafriiqow maxaa tahay calaamadahaagu maxay yihiin sidee lagu maarayn karaa arrimaha inaynu ka hadallo ayaan rabaa insha allah tacaala sixra tafriiq waa sixirada ka mid ah waana sixirada qur-aanka kariimka ah lagu magac dhabay yufariquuna bihi bayna almari wa zawjih sixirada ilaahay uu magacooda sheegay waa laba sixir waa sixirka sixra takhyiil la yidhaa
يخيل إليه من السحر أنها تسعى، يخيل إليه أنها تسعى، وسحر التخييل بالليلة وإن سرعات بوسمية منا سحر التفريق بالليلة هذايو وكإله سورة البقرة وكشيغي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان آياداس وكإلهي قده هذا كشيغي أو إلهي لا يفرقون به بين المرء وزوجه مركا سحر كاسي بين المرء وزوجه وكليا ما يعني كما كوبصدو أطراف يدعل فربضن بو لبحي كرا وانا سحرك أغبضن أي استعمالان سحر رولياش كاوحا ضد كيسا أو إسناعينو كهدلي دونا سحرك الله يلاحظو سحر المحبة أما سحرك أيو يقانين سحر التوالى مرنا قفك بنا آدمي دونيتان كيسا لرمود قرين يايو لمامولان يايو وحانو النعبادين بالا النعبيسين يا وكان ينو كهدلينا مرنا isla dareenkii qofka bini aadmiga ah la maamulanayaa si khasab ah oo shayaadiin iyo jin baa loo soo diranayaa waxaana loo isticmaalsiinayaa waxaanu jeclaan lahayn baa lagu sidkaya oo lagu qasbaya oo sixr al mahabba la yiraahdo waa nooc sixirka kamida atiwalana way yiraahdaan isagana si gaar ah ayaynu uga warrami doonaa waa sixir aafa kaasina oo dhibtiisa iyo hawshiisa iska wata سحركني وسحرك انت فرها بدن والبابك لغا غلو برشده سحرك اعاذنا الله وانا سحر سي سهلا اهرغلا انت فرها بدن يا لانا سيده لوغو تلاغلay uma dhaco ولا يفلح الساحر حيث اتى iyadoo oo loogu talagalay tafriiq ayuu u adeegsami karaa siyaabo kale oo sixr al marad buu isu bedeli karaa أما سحر الجنون بو يسبدلي كرا أما سيابو ومركز سحر لديغيو وحال استعماليا لبا خيط با الله استعماليا لبا أبشن با الله استعماليا جنك لديرانيا شيطانك لديرانيا لبا أمر با الله سينيا وحال لغو أورانيا وحان كاربنا مركز قفكا مسكح دي سقادو هبلي هبلنا اسنب عيسي dadka kalena sidooda u daa labadaasaan ka rabnaa inaad isjeclaysiiso dadka kalena inaad yani aan ma khusayso sixirkani marka waxa laga yaabaa sixirkii loogu talagalay laba qof oo kaliya inay isnabcaysiiyaan qofkii sixirka loo xiray in aanu sixirkii ku koobsanin labadan qof kaliya ee khalaa'iqda oo dhanba inuu naco makhluuqaadka kale oo dhanba inuu naco مثلا هذا تصالة يركسي هذيل أي نكسر قانون سحر المحبة يعني سحر كان له أديك سنة يا إن شنك أمر لسيه أو لا يراهضه هبل هبل استعليسي دتك كلنا نبعيسي أو ننكاسون لوا ننكاسو قبر داسون هكودولو أما قبر داس ننكاسون هدبا أردو دتك كلا أردنا هكسي جيستو waxaa laga yaabaa saddex daraf inuu sixirkaasi yeesho in wax allaaliya wixii nin la yiraahdo oo dhan inay jeclaato daba orado halkii laga rabay nin kaliya inay jeclaato nin ma tahayba inay ka xanaaqdo ama waxaa laga yaabaa inuu sida kale isu rogo halkii jacayl laga rabay inay kii loo dhiga iyo inta kale oo dhan banacdo oo wax magac rag sheegto oo dhan maca aabaheed maca walaalkeed ay sanifto oo ay tiraahdo dhididka rag oo dhan waan ku matagaya oo asibaan ku noqonaya rag oo dhan ay ka cararto iyo in boqolkiiba hal ninkii la rabay inay jeclaato uu qabto marka adraaftaas uu leeyahay boqolkiiba hal buu sida kale sida caadiga u dhacaya inta kalena mudaacafaad kale u yeelanaya marka sixirkan la yiraahdo sixr at-tafriiq waa sixir aafaysan oo aad u dhib badan waxa la yiraahdaa sixirkan aad iyo aad ba junuuda uu u cayimay ibliis la'natullaahi calayhi oo sixr at-tafriiq
قروب بaa loo tababaraa shayaadiinta sixr almaradkana qaar baa loo tababaraa asmaa gaaray leeyihiin sixr rabtiga qaar gaara loo tababaraa marka sixirka ugu badan ee ugu junuud badan waa sixr tafriiq shayaadiinta lagu isticmaalo sababta oo ah ibliis waxyaalaha uu ugu jecel yahay ee uu ku dalacsiiyo ciidankiisa iyo junuudiisa waxa weeyaan junuuda ku guuleysata inay qoys muslima dumiyaan haddii shaydaanka qariinka ah ee uu diray uu ku guuleysto inuu qoys muslima dumiyo darajooyin buu dalacsiiyaa wuxuuna ka yeelaa muqarabiintiisu ka yeelaa xadiid muslim uu warinayo saxiixa baa jira waxaanu leeyahay xadiidkaasi rasuulkeennaa warinaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkaas nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka warinaya jaabir binu cabdillaahi wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ina ibliisa yadacu carshahu cala almaa ibliisku meel biyo dushooda ayuu sariirta boqortooyadu u dul taalla uma yabcahu saraayaahu wuxuu kala diraa guutooyinkiisa fa adnaahum minhu mansilatan cidda ugu dhowaansha badan uu soo dhowaystaa acdamuhum fitnatan waa mid kasta oo fitno dhagaha faraha la geliyey sababa yajii'u axaduhum mid baa yimaado oo jinkii la diray ka mid ay shaydaankii markaasaa wuxuu ku odhanayaa warbixintii markii laga qaadaya warbixinta yowmiyan baa warbixin loo kala qaataaye wuxuu odhanayaa markuu sharxayo dhibaabuhu u geystay aadamaha facaltu kada wa kada anigu dhibtaa iyo dhibtaa iyo dhibtaa iyo dhibtaasaan geystay wuxuu odhanayaa shaydaankii iyo ibliiska weyni maa sanacta shay-an halkan kula rabay maad gaadhi waxba maad samayn halla maaha buu odhan uma yajii'u axaduhum mid kalaa yimaada fa yaquulu wuxuu yidhaha kaasi markuu warbixinta u dhiibayo shaydaanka iyo ibliiska weyn maa taraktuhu xataa faraqtu baynahu wa bayna imra'ati waan waday ilaa aan labadoodii kala kaxeeyey labadii sawj ninkiiyo naagtii qaala markaasaa wuxuu ku yidhaha ibliiska weyn waayahay fa yudnihi intuu soo dhoweeyo kii sidaa yidhi buu laabta ku qabsadaa markaasuu nacam anta sax kaan rabaa tahay isagu markaa soo dhowaystaa xadiidka sifadaa leh ee warkaa ina siinaya muslim baa wariyey waana xadiid saxiixa waana xadiidka uu ku qotomo tafriiqu tafriiq haddaba maxaa la yidhaahdaa tafriiq waxaa la yidhahaa huwa alcamalu الsixri litafriiqi bayna الزawjayn waa shaqo iyo sixir loo samaystay in lagu kala kaxeeyo laba isqaba aw libathi اlbugdi ama waxaa loo sameeyaa in la dhex dhigo cadho iyo karaahiyo labada ruux ee isqaba aw bayna asadiiqayni aw shariikayni ama laba ruux oo saxaybaa in lagu kala didiyo ama laba ruux oo shaqo wada leh in lagu kala kaxeeyo markaa noocyuu leeyahay sixra tafriiqu waxa weeye sixir la yidhaahdo sixra tafriiq bayna alwaalideyn waa labada ruux ee isdhalay sixir lagu kala kaxaynayo waa sixirkii uu ninkii la odhan jiray waliid binu muqiira marka haddii alla yidhaha nebiga uu doonaya inuu macneeyo waa kii uu lahaa waa sixir ayuu wataa uu ku kala kaxaynayo laba isdhalay tafriiq baa la yidhaa waxaa kaloo sixirka ka mid ah sixir loo caqado ilmaha iyo hooyadii in lagu kala eriyo ama sixir loo dhigay laba ruuxoo walaala ama dad walaala ah in dab la dhex dhigo ama laba ruuxoo saaxiiba ah in lagu kala kaxeeyo ama laba ruuxoo shuraaka ah in lagu kala eriyo ama laba ruuxoo isqaba in lagu kala eriyo intaba sixra tafriiq baa la yidhaa intaa waxaynu uga gudbaynaa haddii aynu ogaanay anwaacdiisa calaamadaha lagu garto in meesha sixir uu yimi marka aan ku leeyahay calaamadaha lagu garto calaamadahan waxaa la wadaagta isha caynannaaska ama caynaljinka
lafteedu calaamadahan way yeelan kartaa ishu bini aadmiga way kala firdhin kartaa laba ruux oo isjecel baa mid xaasidii intuu arko alla labadan maxaa iska jecel jacaylkoodu badana waxaa laga yaabaa carabkiisa maasha allahu aanu odhan baaraka allahu fiikum aanu odhanin inay isla saacadda xaasidnimadiisii ay howl gasho oo labadii ruux ay kala firdhaan ishuna way keeni kartaa markaa tafriiqa sixirkuna wuu keeni karaa haddaba haddaynu nidhaahno il baa adeegtay ama sixir baa adeegay midku doonaba aan nidhaahne maxaa lagu garanayaa meesha in caamil kale ama sabab kale oo dheeraadiha ay reerkii soo dhex gashay ama labadii ruux waxaa ka mid a inqilaabu alaxwaali faj'atan min xubbin ilaa bugdin si uun dhaqso ah oo faj'a ah oo kedisa in labadii ruux oo biduuni sabab ay un kala weji dadbaan wax allaaliya wax dhex maray oo lex jeclo ah ama arrinii maba jirto kanima sababayn karo war maxaad ruuxan ka rabtaa kana ma sababayn karo haddana wuxuu leeyahay jinkaygaa necab jinkaygaa nabcaaday oo nabsad uma hayo buu iska kaa odhanayaa wax awooddiisa ka baxsanna uu yahay qodobka labaad ee sixra tafriiqa ama cayna tafriiq lagu garan karaa kahratu shukiiki baynahumaa labadaa ruux wagartuunbaa shaqaynaysa wagartuunbaa shaqaysa qofkaas mar walba kanunbuu shaki ka qabaa aduunbuu kugu maqan yahay aduu ku shirqoolaya aduu balaayadaada ka shaqaynaya aduu wararkaaga gudbinaya aduu qofkan unbuu ka shakisan yahay oo dareenkiisa oo dhan iyo anteenadiisa oo dhani iyo fookaskiisa oo dhani qofkan unbuu fuulayaa qodobka saddexaad waxa weeye cadamu liltibaasi alacdaar labadan ruux dhacdooyinka dhex mara wax cudurdaaraba uma raadiyaan cakiska iyo xagga xununbay mar walba uga miisaan war qofkan maxaa ku keenay tolow wallaahi qofkaas waxaa laga yaabaa inuu qaldamay waa nooc cudurdaar raadisa laakiin isagu marnaba ruuxa si ishu ku kala dhacday ama sixirku marnaba cudurdaar dhacdooyinkiisa uma sameeyo wuxuu uga qaadanayaa un dhinaca shu'miga iyo dhinaca baas unbuu ula kacaya qodobka afraad waxa weeye tacdiimu asbaabi alkhilaafi wain kaanat xaqiiratan hadday wax yar isku maandhaafaan haba yaraado waxaas waxaan naf lahaynba ha ahaado wixii unbuu focus weyn gelinayaa microscope unbuu saarayaa wixii unbuu ka dhiganayaa wax weyn oo aan la qaadan karay siduu waxaa ii yidhaahdaa siduu waxaa unbuu odhanaya hadda wuxuu waa wax basid markay dadka kale ula tagaana way fahmay warda waxaan wax lagu kala maxaan ku dhahdaa ma aha oo siduu waxaa ii yidhaahdaa unbuu odhanaya waxay odhanaysaa wareedhe war carruurtii caani baa ka dhammaaday siduu caano uga dhammaadaa soo taan shalay uun soo bixiyey maaha war daqiiqdii baa naga dhammaaday oo daqiiqdu dhammaan ogaa goorma wixii wuxuu ka dhigayaa uun waxaan la qaadan karayn oo aan asbaabba loo eegaynin qodobka ugu weyn ee isna halistaa waxa ka weyn ka mid ah taqallubu suurati axadihima aw kilaahumaa fii cayni alaakhari mandaran qabiixan waxaa dhacda labada ruux inaanay isba eegi karaynin oo marka uu eego sawjadiisii suurad baa wejigeedii ka soo horraysa suurad aada u foolxun habar gabowday ama daaman dameer ama waraabe ama waxbunbuu arkayaa qofka wejigiisii unbuu moodayaa makhluuqa ka ugu foolxun ama iyadu sidoo kale ayay u arkaysaa ruuxanay la nooshay alla foolxumaa unbay odhanaysaa ama waxaa laga yaabaa labadii ruux oo nadiifa oo soo maydhay oo iscadriyey in ruuxan sanka loo saaro qadhmuun ama iyada sanka loo saaro qadhmuun oo ay u qaadato waxa urayaaba inuu yahay sawjkiisa ama sawjadaysa noocaana way isticmaalaan shayaadiintu inay qofka u bedelaan suuradda ama ay u bedelaan raa'ixadda labadii ruux oo caadiya
ودتك كلا أنا أورينين بأيجا نحدو ذا الله يسوع أورينا ورم حا يسوكين أوريه وات الصومالية ها يسوكين أوريه مركا تانا واستعمالان شياطين تو رائحة أن لأكتوجي كريم باكسو فاحسة لبدو دبا أمام لبدو دميت كود waxaa dhici karta qodobka lixaad ah in ruuxan masxuurka ah sixran inaanu had iyo jeer shaqada iyo amalka uu qofkani haye oo ka shaqeynayo inaanu mabsuudba ku ahayn sariirtii bay u sii gogashay markaas oranaya maxaad go'aan noocan ay igu gogashay ama barkimada maxaad labada barkimo taa aniga igu dhigayda taa aad ugu dhigad wax macnaa ma leh ama waxa uu soo sameynaysaa raashino oo shalay baad aniga ay siisay digir maxaad maanta igu korin weydo shuuro ama wax la mid ah waxaan de macna lahayn amal kasto oo ruuxani u qabto oo ku raali geliyo siraahdo isaga qanaaco kuma haysto wax weyn oo hadda laga xanaaqana ma ahan qofkan uu had iyo jeer raacaya wuxuu had iyo jeer qoonsanaya amalka ruuxan kale ama gabadha jara raacaysa ama wiilka jara raacaya imika mushkilada ugu weyn ee hadda uu u fuula waxa weeye waa mobilka walahaye rag baad la hadlaysay Soomaa message-daas lagu soo diray Soomaa ama yaayta kaalay maalul bada anu baad igu dul sheekaysataayo telefoon banaayo ma adiga u tagtid na ilaahay ka cabso waa kan mobilkaygi waxa la hadlay maayma waan maqlay markaad naaga la hadlaysay waan xasoomay marka wuxuu isku dayaa inuu mar walba dhaxdooda shaki abuursiyo shaqada ka kala qabanayana aanu qanaaco ku lahayn kan waxa kaloo dhacda oo qodobka toddobaad oo calaamaadka kamid ah qofkan masxuurka ihi marnaba kuma qanaaco qabo meesha uu joogo kan kale maba wada joogi karaan waxa laga yaabaa haweentu guriga uu qolka uu ninku jiifo inaanay raaxaba ku helayna markay qolaalka kala tagto inay nafisayso haday qolkii jiifka ninku joogay ay timaadana aanay marnaba qanaaco helayno balaaya ay hadii alla ku kacayso ninkuna kadalik inaanu sawjadiisa qolkay jiifto aanu seexan karaynin waa nooc calaamadaha ayna tafriiqa ama sixra tafriiqa lagu garto waxaad arkaysaa qofku markuu guriga ka maqan yahay ama qolka ka kala jooga uu ka maqan yahay waa murtaax albaal niyadu way u degan tahay caadi weeyaan niyadu way u degan tahay laakiin marka hadii alla ka dhigo ay isu yimaadaan waxa ku furmaya tashwiish iyo qalaq iyo qidiiqad buu kaliya hadi waa calaamaadka ugu badan ee aad ku garan karto meeshan in caamil saddexaad jiro ama sixir tafriiq ha noqdo ama ayna tafriiq ba ha noqoto waa calaamadaha lagu garan karo in meeshan ay aafa ka shaqeynayso ama balaaya ay taalo waxaan uga gudbaynaa sidee ayaa sixirooluhu u sameeyaa ama siyaabaha u adeegsado saaxirku markuu doonayo laba ruux inuu kala sixiro muxuu adeegsadaa waxay noqon doontaa casharkeena kan ku xiga ayuu insha Allah noqon doonaa qaabka uu adeegsado sixirooluhu markuu doonayo inuu sixir tafriiq uu sameeyo halka caawa casharkeenu haynoogu joogo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh